gudoomiyaha urur siyaasadeedka shaqaalaha iyo dhalinyarada Somaliland ee Reis Mudane Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafadhi ayaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. dadweyne iyo gaadiid tiro badan ayaa gudoomiyaha iyo waftigiisa kaga hortagay deegaanka Qoyta oo 18 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga toosan magaalada Burco. dadweynihii soo dhaweeyay urur siyaasadeedka Reis ayaa lulayay astaanta calanka ururkan kadibna waxaa gudoomiyaha loo soo galbiyay xagga iyo magaalada Burco waxaana gudoomiyaha urur siyaasadeedka Reis Mudane Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafadhi uu meel fagaar ah kala hadlay dadweynihii soo dhaweeyay waxaanu ka warbixiyay urur siyaasadeedka Reis. waxaan gudoomiyaha aynu ku fadhinaa waa nabadda ayaynu gaarnahay dadka maanta imaan haysan baana garanaya waxaan dadka kula talinaya nabadda in mar walba la ilaaliyo oo la adkaysto ayaan kula talinaya waxaan baan u jeedinaya dadka ku nool caaga ceel bardaale waxaan aad iyo aad uga xunahay shilkii ka dhacay ceel bardaale iyo dilkii ka dhacay baan aad uga xunahay waxyaabaha nabadda dhaawacaya waxaanu leenahay wixii geystayna in la abaalmariyo wixii loo geystayna inay samir iyo dulqaad inay ka qaataan waan ognahay dhibaato adag weeyaan aad u xun waxaanu jecel lahay waxa la yidhi ilaahay wixii uu keenaba wax ka daran buu hayaa waxaanu leenahay iyadoo waxaasu dhaceen haddana samir iyo dulqaad in laga yeesho ayaanu rajaynaynay oo ku baaqayna xukuumadda waxaan leenahay shaqaaqada ceel bardaale waxaad moodaa waxaan dhammaystirnayn inay jirto qabiilo ahi sidii qabiilaa loo dhammaystiri lahaa oo nabad waartaa lagu kala bogsado loo heli lahaa waxaynay dowladdu u xalaalay waxay cudud leedahay inay saarto oonu dowladdan u soo jeedinayno hambalyaynaynaa nabaddii laga sameeyey ceergaawo aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa in la sii adkeeyo oo dacallada la hayo oo beel qura la noqdo oo aan la iskala qaybin oo waxaa khaldan in looga soo wada jeesto ayaanu iyaguna ku baraarujinaynaa gobasha nabadeeda laynaga baaqay shaqaaqadii kalsaale ee suldaanka guuda beesha uu ku baaqay waanu soo dhawaynaynaa waxaanuna leenahay dhinac waliba inuu ajiibo si loo helo nabad waarta oo ay dadku ku wada noolaadaan u soo baxayaan inay hoggaanka u hayaan nolosha ka dhacaysa iyo isbedelada ka dhacaya iyo horumarka deegaankooda ka dhacaya ayaa loo dooranaya geestoodana waxaa madashan ka hadlay Suldaan Cabdiraxmaan Maxamed Cali Ruwaaye iyo mas'uuliyiin kale waxaanay sheegeen in loo baahan yahay in la taageero ururkan Reis intaasi kadibna gudoomiyuhu waxa uu xariga ka jaray xafiiska guud ee urur siyaasadeedka Reis uu ku yeelanayo magaalada Burco waa markii uu horeysay urur siyaasadeedka Reis mas'uuliyiin ka socota ay soo gaaraan magaalada Burco.